بسم الله السلام سمالوين سيتين سوحة نكسن كلو نكسن وقت قاعد عاوني سدو نكسن سوصانا حيس بدن كسور دواد أركين جنال ما أنت مقال كينو حوك سابسينيا أو عوان كينو ياي what are intercompany transactions محيهين intercompany transaction سيدلو ديوان كليا دعدوينك كدحدعو كمبانيغا إي فرعيديسا سيدلو ديوان كليا qof ayaan soo weydiiyay oo dhahan next 10 kan kadhig balse kama dhigino hal ayaa ku hormarsiin sababtan waxa waaye horta waxa aan basic afaan accounting marka oo xog diyaarinayo oo rabo in xog la diyaariyo soo saaro financial statement intee laga bilaabo talaabooyinkee laga bilaabo ayaa soo baran saddex saac kale ugu horeysa soo barnay oo aan dhahna marka hore in la qeexo dhacdada kadibna la diiwaan geliyo journalka la diiwaan geliyo kadibna la guuriyo tii accounting la jir intaas marka isla soo fahnay maanta waxa ka hadlaynaa intercompany transaction ama intercompany transaction ka waxa laga wadaa waa dhacdooyinka ka dhaxdhaco company iyo farcidiisa dhacdooyinka ka dhaxdhaco sida loo diiwaan geliyo ayaa laga wadaa taas ayaa ku barneena common types oo intercompany transaction waxa ugu caansan sales iyo loans maanta waxa qaadanaynaa xoog saarayna saleska sidee companyga iyo dhexdiisa baranjidiisa ee wax u kala iibsadaan iyo dhacdooyinka sidee u kala diiwaan gashadaan ayaa maanta qaadanaynaa okay marka tusaale aan qaadano aan shirkad iibisa dharka ayaa kambaskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa suuq bakaaraha qaybteeda ugu weyn qaybta laga bilaabo oo ugu horeyso oo furay kadibna cabaar marka shaqeysa kadib shirkadda waxa u suurta gashay in ay qayb kale ka furto xamarweyne cabaar kadib waxa u suurta gashay in hadana farac kale ka furto suuq weyn okay shirkadda weynta waxay hadda shirkadda waxay ka kooban tahay saddex baranjeelada qaybta ugu weyn horta kambaska ugu weyn oo bakaaraha ku yaalo oo fariisimaha ah iyo laba farac oo ku kala yaala xamarweyne iyo maxay aad suuq weyn kambaska weyn ugu horeeyay ee for business waxa la baaranti ala sababta loo dhahan waxa waa control ka sahayo labada kale ee farac asiga controlay oo saami ahaan lacagta ugu badan ee maxay aad company-gan asiga ay ku jirtaan ariga 60% in as ku jirto 20 kale in ama 40 kale in uu kala qaybsamaan faracyada inta rabaan hal ay kaalaan marka dhaxdeeda sidee uu dhacdooyinka ugu dhaxdhici karaan waxay ugu dhaxdhici karaan tusaale qayb farac suuq weyn oo ku yaala aan ayaa waxa ka go'i karo alaab waxay xil iibinay dharka iibinay qayb kamid ah ka go'i karto marka qaybaha kale ayaa la weydiinaa shaygaas go'an ma haysin ma yaala haawiyana marka qofka wax ma la siina isla anaga leeyahay hoo qaad alaabta xaga ay dadka go'anta geeka iibi ma la dhahay waa la qoraa accounting wax walba waa la diiwaan geliyo wax walba xal raba in ay cad yihiin oo la diiwaan geliyo laba wax way dhaceen ama anaga isla anaga leeyahay la dhahay ma jirto waayo meeshan inta adeeg yaalo qiimaha ku yaalana la ogyahay inta baxda la iibiyo iyo wixii lagu iibiyo inta hartay farqa oo dhaxal ka soo bixi doona su'aalaha ka iimaanayso marka wax walba buug inuu ka cad yihiin sababta loo dhahay saas waay okay hada marka waxa dheena tusaale ah soo qaadanayna farac ku yaala aan suuq weyn ayaa adeeg waxa ka go'ay tusaale fanaanada ku go'ay dalab marka wuxuu dhahay dalab fanaanada waxa baahan jumle marka fanaanadii wuxuu tagaa kambaska weyn waxa la adeeg ismihiisi haawahayna okay inta dalbadeen ayaa iyo xisaabtooda ayaa la qoraa si loo diiwaan geliyo tusaale waxa dheena waxay dalbadeen fanaanada qiimahooda ay yihiin jumlooyin fanaanada qiimahooda yihiin $1 ay dalbadeen okay company-ga kambaska weyn bakaaraha sidoo u diiwaan gelinaa dhacdo sidoo u diiwaan gelinaa sidoo kale kan yare farac asin dhacdo soo diiwaan gelinaa tusaalahan hor tusaale fudud ka dhiganayna kan ku xigana ayaa si fiican loo sii fahmi doona kambaska weyn sidoo dhacdadan oo kale u diiwaan gelinaa wuxuu u diiwaan gelinaa sales ayuu sameeyay wax ayuu ka iibiyay farac ayuu ka iibiyay okay sale credit ka dhiganaa waa kordhay sales revenue waxa soo galaayo deen hadii ku iibsadeen akoon receiver ku qornayna hadii cash soo galayna cash waa qaban cash inuu noqon dhanka kale farac oo ayaga wax iibsaday ayagana sidee u diiwaan gashanaa dhacdo waxay u diiwaan gashanayaan purchase waa ayaga dibid waxa ah purchase waxay soo iibsadeen kadib waxa ka noqonaya ama cash hadii ku soo iibsadeen cash ka noqonaya hadii dib ku soo iibsadeen account payable noqonayso okay sidaas waxa u diyaarsan booga oo branch kasta u diyaarsan qayb kasta oo u diyaarsan tahay waxeeda qayb hadana waxa isla arkaynaa booga guud ee company dhacdo sidoo u diiwaan gelinaa dhamaadka bisha markii la gaaro booga guud marka aan waxa ka wadnaa waa soo aragnay qayb kasta iyo sidoo u diiwaan gashay dhacdada sidoo u diiwaan gashatay waa soo aragnay booga guud marka ka wadnaa waxa dheena hal group ay noqonayaan yani faracyada company-ga isku soo wado hal group ka dhig marka hal group la dhiga marka ma la ogolo in anaga dhaxdeen wax iska iibina ama wax iska faa'iidno ma la ogolo deen isku lahaana ma la ogolo ma waa la tirtira marka koonada dhan waa la tirtira dhacdo hadda dhacdo waa la tirtira okay tusaale waxa ku baranayna anagoo tirtireyno account paper iyo course tusaale kan ka xigo inta iska badan anagoo baabi'inayna ayaa ku baranayna okay
هذا أترترنا هذا waxa u jeedna account receivable oo dibad lacag sugayo $1 dadkan kale waxa u qoran lacagteena lagu sugayo oo maxay ahayd $1 abaabino waxa ma iska iibsan waxa la iska sugayo waxa ma jinaan aan ka soo qaadno okay marka account payable aan dhahay aku bilaabo account receivable markii la baabi'inayo intee laga baabi'in jiray intee la geen jiray asadoo ahaa dibida ku kordhi jiray marka in la baabi'in la rabo waxa la geenaa credit la geenaa badanka marka account receivable credit waxa arki jirnay cash oo soo gala bedelkiisa account payable sidoo kale asna marka la baabi'inayo marka hore credit ku kordhi jiro asii jooga laakiin marka la baabi'inayo waxa la geenaa dibida la geenaa bedelkan waxa la arki jiray credit cash oo naga baxay arki jirnay okay maanta marka sidoo loo sameeynaa ilmihiinka waxa la sameeynaa ayaga la isweydaarina mid walba meesha oo ku baabi'i jiray ama ku yaraan ku nasqaan jiray ayaa la geenaa account payable dibida geenina account receivable credit dag waa isku soo xirna hadda aan dhaxno baranjiga waxa iibsaday oo $1 lagu lahaay waxay keeneen 500 kamid ah ay keeneen lacagta lagu lahaay 500 kamid ah ayay keeneen okay kan bas asii wax u qarna hasdiina waxa waaba la baabi'iyay buug weyn lagu baabi'iyay buug oo cid walba goonideeda oo sitay xisaabteeda ugu qorantaa okay $500 ayaa soo gashay kan bas weyn ay soo galay $1 lahaayeen bas 500 kamid ah soo gashay cash aan soo galay dhahaa debit cash oo 500 lahaaya cash inay haye bedelka marka maxaa la yareena account receivable ka la yareena $1 dadkan ugu lahaa 500 kamid ah maadaama ay keeneen 500 laga jaraa account receivable credit laga dhigaa oo 500 lacagtaas loo qoray okay tii account receivable hadaa sameeyno waxa dhaheena kun marka hore debit aheyd 500 laga jaraa oo credit hadda laga dhigay account receivable debit balance waxa waay 500 dhinaca kale oo maana dadkan kale ayana maxay diiwaan gashanayaan account payable deen waxa lagu lahaa $1 gaaris oo credit aheyd cash madam 500 ay bixiyeen account payable kala baabina dibida la keena 500 kamid la baabina ma loo baabina dibid account payable 500 credit waxa ka dhigayaan cash ka bax 500 hadaa diyaarno tii account payable ah marka hore $1 credit u joogtay oo lagu lahaay haddana 500 kamid maadaama ay baxday dibida laga dhigaa kala jarkooda account payable credit balance waxa ku qoran 500 ka muuqato booga company marka tagno maxaa ku qoraynaa buu company marka tagno wixii ka dhac dhaxdeena waa tirtiraa isku ogeeno okay hadda waxay arkayaan debit balance account receivable 500 iyo credit balance oo waxa ay account payable oo 500 waa isku baabi'inaa si tusaale hor waa isku baabi'inaa hadda tusaalaha dadka ma halka ay ka keeneen 500 hadii kun wada keenay lahaayeen ma jirleen wax account receivable hore iyo wax account payable waa isku ay mar hore dhacdada xirmi lahayd inta aan gaarin tusaaleena kuwada oo fududaa wax kaliya waxa soo arin ayado account receivable iyo account payable la baabi'inayo limit kareenaa hadda waxa arkeena ayado si guud dhacdada loo baabi'inayo laga soo qaada in aysan dhacdo dhicin tusaalaha marka waxa waaye company-geena campus weynaay maanta dhan saas ay ku socon doontaa tusaalaheena sales waaye haddana ayado oo campus weyn oo wax ka iibinayo faraca taas ay ku wadeena b wixii merchandise ka iibisay merchandise taas oo ku fadhiyo costigeeda ahay $800 waxay ugu iibis marka ilaa uma iibinaysa qiimo ku fadhiso waxay ugu iibinay qiimo ka duwan waxay ugu iibisay $1 deen ayay ku iibsadeen markaas wax deen ayay ugu iibsadeen hay waxa la gaar marka as company asi subsidiary ki ah asiga ma iibinin oo alaabta ma sii gadan oo banaanka ma imaanin dad kale oo kabiri banaanka ugu imaado wax iibsada ma jirin marka waxaan la gaar dhamaadka sanadka December 31 sidoo loo diiwaan gelin dhacdada كورت سيدا كامبس كوين وديوان كشنا dhacdada buugga u qorna farac sidoo u diiwaan gashana iyo eliminate loo sameeynaayo qaybta marka bakaara ay waxay u diiwaan gashanay sales SMS kiri $1 isla tusaalihi hore oo buuxo waa kan maxaa bedelka dibid maxaa noqonayo deen maadaama lagu iibsado account receivable $1 oo qoran sidoo kale maxaa kale oo credit noqonayo waxa baxay inventory anaga baxay aadan maxay ahayd 800 waxaa laga dhigaa credit maadaama baxay okay waxa fiirinayna marka la sameeyo journal dhacdo marka diiwaan geliyo waxa la fiirinaa dibid credit misla eegay hada dibid waxa noogu qoran account receivable $1 credit waxa noogu qoran sales oo $1 iyo inventory oo ah 800 marka taas waxay ka macno tahay $1 iyo $800 isla eeka okay meesha maxaa ka maqan cost of goods sold dibid laga dhigaa cost of goods sold iyada waa expenses ka waxa dhaana meesha asata ka hordho ay ka kordhaan meesha kon fiiriyo kan kore ay ku soo baran marka saas loo diiwaan geliyay dhacdo marka diiwaan gelisid dibid credit misleegina fiirina hada dibid fiirina waxa ku qoran account receivable $1 ah iyo
cost of goods sold oo 800 kun 800 dhinaca kale waxa ku qoran sales iyo inventory oo 800 isku ah tik waa marka waxaa loo diiwaan geliyay si sax kala saaray dhanka kale ayagana sida u diiwaan gashanaya ay inventory soo gashay dhibid ka dhiganayaan credit waxay dhahay maadaama ay deen ku soo iibsadeen account payable oo qoranta deynta ku qortay oo aan garabaan okay wax kale oo dhacay ma lahan bishii dhamaad xisaabta in la soo xiraan rabaa sidaas ay campus kasta ama qayb kasta sidaas ay xisaabtooda ugu qoran tahay buugooda ugu diyaarsan tahay hay-a u maana marka aan group ka dhigno sidoo loo sameynaa elimination sidoo loo sameynaa group marka la dhaho oo buuga company guud waxaa dhahnay elimination lagu sameynaa wixii anaga dhexdeena ka dhaco waayo waa iliga lama ogolo in anaga wax iska iibino oo iska faa'iidno ama deyn iska sugno lama ogolo dhexdeena marka waa baabi'inayna dhahnay marka buuga guud ay joogno waa baabi'inayna elimination hadda u sameynayna asla arkayna elimination waxaa soo aragnay horta account receivable iyo sida loo sameeyo account payable tusaale kan ka horeeya ku soo aragnay kali waa la isweydaarinaay isla tusaalahan ayaan sidoo kale isweydaarin account payable xaggiisa debit meesha uu ku nusqaan jir account receivable xaggiisa credit meesha uu ku nusqaan jir labadooda eber waa isla baxeen waa la isku soo xiray haye waxaa u imaanaynaa maxaa kale sales ah meesha ka muuqdo oo credit ah sales lama ogola in anaga dhexda wax iska iibin sooma dhihin ayadana waa baabi'inayna intee geenayna has wareerin shay kasta meesha oo ku kor dhamaana meesha oo ku nusqaamo oo cagsigeeda ahle gey waa baaba'an okay salesna waxaa geenayna dhibida ka dhigana okay sales dhibida ka dhigna maxaa kale dhibidna ah account payable waxay isku yihiin hadda dhibidka waxay isku yihiin 1 ilaa 2 kun oo isku yihiin haye credit-kana credit waxaa joog account receivable 1 ah iyo waxaa kale oo credit ka dhigayna cost of goods sold soo raacayso oo ayadan maadaama ay tahay qarshaadkana adana meesha asad ka yaraata soo raaca account receivable oo ayadan credit gay okay cost of goods sold waxay ahayd $800 account receivable $1 ah iyo waxa arkoona inta iyo cost of goods sold oo $800 oo ka misleegi miisaan markasta adana dhacda diiwaanka waxa dhahan waa miisaamay dhibid waxa ugu jeedna 1 ilaa 200 kan 1 ilaa 800 1800 isla meeko okay meesha maxaa ka maqan inventory ayada soo helna soo raadin 800 inventory oo credit mar arkoona marna 1 oo waxa arkoona oo dhibid ah tii account inventory asameeyna credit-ka 1 ku qor dhibidkan 800 ku qor meesha maxaa ku haysana inventory credit balance oo 200 okay ayadan credit kare way isla eegi marka 2000 iyo 2000 tig waa eliminate kareena waa tirtirna dhacdaas waxa ka soo qaadna ayada oo badhicin dib ayaa u celinay hada soo qabno muuqaalkeen maanta wuxuu ku saabsanaa intercompany transactions waxay yihiin soo aragnay sidoo kale common types kooda oo sales iyo loans soo sheegnaa soo aragnay sida loo diiwaan galay dhacdooyinka dhaca company-ga iyo baranjidiisa soo aragnay iyo baranjiga sida xisaabtiisa u diiwaan gashado sidoo kale waxaa soo barnay company si guud sida elimination-ka loogu sameeyo ayaa isla soo aragnay sales ayaa maanta xoog ku saarnay muuqaalkeena weliba markuu yahay from parent to subsidiary campuska weyn marka oo wax looga baahanayo lagu soo iibsanayo oo kan farac uu ka iibsanayo marka sida loo diiwaan geliyana waa soo aragnay cagsi waa noqon kartaa campuska weyn wax uu u baahan karo way ku go'i karaan oo baranji uu uga baahan karaa ayadan marka si loo diiwaan gelina cagsi la dhigaa maanta waxa oo campuska weyn loo diiwaan gelinayo kan kala diiwaan gashana waayo markasta dadka wax ka baxayaan ayaa sales qoranayo bedelkan account receivable ama cash qoranayo kuwa wax ay soo galayaan barges ay qoranayaan bedelkan account payable ay credit ku qoranayaan ama cash ka baxay sidoo kale waxaa dhici karta in baranjiyada dhexdooda ayaga ay iska iibsadaan oo isaga baahdaan adeeg intaan ayaynu ku eegyaa muuqaalkeena maanta ilaa inta daal socotay aad iyo aad ayay ku mahadsan tahay waqtigaada hadaa wax ka faa'iiday laagsan hadaa wax qalday wixii aqalda haliga saxo inta aan saxay alla ayaa waafajiyay alxamdulillah ugu dambeyn aan ku salaamin nabigeena اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد